hadda ka hor baa waxaa dhacay nin shariifa oo reer Xadarmawd ah ayaa Soomaaliya yimid magaalo la yiraahdo Jalaalaqsi buu ku soo degay waxaa soo dhaweeyay niman jamaaca oo halka deganaa oo ahlu dariiqa ah dalka marka waxaa ka dhacay abaar ninba marka dadku kala hawl badan wuxuu yiri war ninkan shariifka aan ka ducaysanno oo aan xujayno yiri rag buu soo kaxay soo shariifkii uu yimid wuxuu shariifow waxaan u maleeyay bur inaad shariif dhalada ahayn ee aad tahay nin iska soo dhigay shariifkii waa naxay marka dhagu taag taqul kida uu yiri markaas uu ha ومحا جيرو يري wuxuu yiri madar la'aan baan haysa ashraafta runta ayna waxa ilaahay ka barisa waa heshaabo yiri wuxuu yiri in lam yanzil madar fi hadha alwaqt ma ana bi awlad an-nabi yiri saacadan hadaan roob imaan awlad an-nabi muhammad ba yiri gibigayba ninka qisada ii sheegay 86 sano uu jiray aniga wuxuu ugu yiri saacadii ba biyo dhaqaadeen buu yiri roob ilaa aan mar kale ku siganay inaan iraado roobku ilaahu naga jooji inaan iraado roobka sida daraadeed qabuulkooda iyo alla barigooda ayaan ku joognaa marka runta la yiraahdo hada waxa la yiri warankaaga marna waa lagu xabkaystaa marna waa lagu xaragoodaa maradii ilaahay ayaga noo reebay marka mar walbaba waxa weeye waa ka faa'iideysanayna marba dhinac noo daran baa la aadayna ilaahay subhanahu wa ta'ala ha noo badiyo hana noo ilaaliyo awlaadda nabi maxamed oo nala joogta iyo kuwa maqan intaba ashraafta oo ah aalu bayti rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam oo ah ramzigii iyo calaamadii diinta islaamka waxaad aad u ogtihiin ashraafta marka la baahdo dhibaato timaade abaar iyo shida timaado ayaga noo duceeyo ilaahay noo barya marka ummadu iskhilaaftana ayaga dadka heshiisiya marka wax la bixinayana ayaga ku deeqa marka diin la sheegayana ayaga hormarina waxaan haddana kale u mahad celinayaa dadka soo safaray oo culimada ah oo caalimiinta ah oo noogu yimid in ay diinta islaamka noo sheegaan annagoo waliba guryahanagii joogna waxaan leenahay ilaahay haydan xifdiyo adinka iyo awlaadiina iyo naftiinaba